deegaanka Jazeera gobolka Shabeellada Hoose koonfur galbeed Soomaaliya oo dhawaan booqasho laanka wargelina mas'uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Usakaseedi gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Umar Mahmoud Maxamed Umar Filish iyo golaha wasiirada ee geeka shirka golo wasiirada mayo ka cambaarayana booqashada gudoomiyaha intii hayti tolahan wargelina mas'uuliyiinta dowladda waniyeeta toqalade iyadoo deegaanka Jazeera iyo ku tirsanta koonfur galbeed Soomaaliya golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ka shiri Baydhabo mayo cambaarayana booqashada gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir intii hayti toqaldan mayniyo ka baaqina inta la ilaaliso honta markii maamulka gobolka Banaadir booqashiyo ka kooyan deegaanka Jazeera iyo la ku fadontiyo hawargeliyaan mas'uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Ilyas Said Ali Qalinle wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed ya ka baaqi inta la ilaaliso hanta gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Banaadir anka damboyna golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo shir gudoomiyaha madaxweyne Cabdicasiis way baaba cambaareen runtii cambaareen aad iyo aad u ballaaran ay u jeediyeen maamulka gobolka Banaadir oo hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Filish runtii socdaal uu ku tagay deegaanka Jazeera oo haba yaraatay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya aanan lagu soo wargelinin iyo mas'uuliyiin kale oo gobolka Banaadir ka tirsan runtii oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waan ognahay aad wada ogtihiin in Jazeera ay ka tirsan tahay uu yahay deegaan ka tirsan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo ay haboon tahay inaanan haba yaraatee deegaan kale uusan ku xadgudbin mas'uulkeeda hadduu tagayana ma uu soo wargeliyahay maamulka ambaba dowlad goboleedka markaas uu hoos imaanayo deegaanka sida markaa kadibna sida mas'uulka iyagoo mas'uuliyiin kale deegaanka oo maamulka uu ka tirsan yahay la socdaan uu ku tagi karaahay hadayba timaadaba laakiin ay tahay mid xadgudub ah aanan marnaba la aqbali karin golaha wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya ay cambaareenayaan safarka oo ahaa runtii safar oo khalad ah runtii oo gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ku tagay Jazeera oo ugu dambeyn looga digay maamulka gobolka Banaadir ugu horeeyay gudoomiye Umar Filish inaanan arrinka dhacay mar kale aysan dib ugu soo noqonin deegaanka Jazeera dhawaan yahay markii gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Umar Mahmoud Maxamed Umar Filish usoo booqasho ka saadi deegaanka Jazeera ee koonfur galbeed Soomaaliya usugoon han wargelina mas'uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Faisal Maxamed Isa warbaahinta koonfur galbeed Baydhabo